الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي mahadle سبحانه وتعالى. إلهي baa keligii mahadleh. إلهي waxaan ka baryay سبحانه وتعالى inuu inaga aqbalo soonkii iyo cibaadadiiba. waxaan leenahay dadka reer Soomaaliland qurbajoog iyo qurqajooba ciid mubaarak waxaan hambalyo u dirayaa oo taasoo kale ah ciidamada qalabka sida soo majeesayaasha iyo ciidamada nabadgelyada. maanta waxaan jecelahay inaan dhowr qodob ka hadlo. mid waa mid ka horeysay waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay arrimihii doorashooyinka 2024 oo meel fiican inoo mariya. shalayto waxaan la kulannay safiirkii Sweden dalka Sweden ambassadorkii wuxuu noo sheegay inuu madaxweynaha la kulmay. madaxweynaha uu sheegay madaxweynuhu inuu diyaar u ka yahay doorashada uu diyaar u tahay Soomaaliland. dhaqaale wixii hayna uu sheegay wixii dhammaan insha Allah taala aynu gudaheena iyo dibadda aynu ka dhameystiri doono. komishinkii doorashooyinka shalay tahay la shireen task force-kii asxaabta iyaguna war khayr qaba ka yimi. iyaguna waxay yidhaaheen liiskii ugu dambeynta ee dadka codeynaya iyo timetable-kii doorashada wiiga soo socda ayaan xaflad qabanaynaa oonu dadka iyo asxaabta la wadaagina. arrintaas insha allahu tacaala inagoo ilaahay saarana ayay noo dhici doontaa. doorashadaas waxa weeye doorashadii noo keentay fururka Somaliland iyo quluubta reer Somaliland kala tagtay. ilaa maanta ilaa intaan xaramka tagnay ka soo duceynay quluubteena ilaahay subxaanahu wa tacaala sa ilaahay ka barinay way isku imanaysaa. khilaafku inaga dhammaanaya. dabaaldegii waxaan u diyaar garoobaynaa 18 May insha allahu tacaala. waxaan jeclahay intaa horteedna inay heshiiskii Somaliland iyo Ethiopia ee wada qabsiga ay intaa horteed dhamaatana waan ilaahay ka baryay subxaanahu wa tacaala oo inagoo taasna go'aaminay oo ku go'aaminay wax wada qabsi aynu helo doorashadii loo horub qaatay. laascaanood arrinteedii way iska soo dhammaanaysaa. waan jecelahay in dadkeenii reer laascaanood la isticmaalay G21 iyo dad aan u ehelin nabadii iyo wanaagii laascaanood ku nooleed ay ka burburiyeen. ay hadda arkeen runtii inaan magaalo noqon karin dowlad goboleed. in dowlad goboleedadii Soomaaliya baaba'ayaan laana waxa dowlad goboleedada Soomaaliya lagu isticmaalay garowe 1 iyo garowe 2 ee ku isticmaashay waxa weeye reerihii oo qabaa'ilka ah oo madaxweynayaal loo sameeyay. halkii bari reer hebel salaadiintooda hore uqaashooda hadaysa ayaa madaxweynahoodii waxa la institutionalize garay qabaa'ilkii ee wax regional administration ka jira ma jiro. hadda la doonayo decentralization dowlad maaha madaxweyne lama sameeyaa barasaabiya la sameeyaa barasaabiyo ayaa la sameeyaa. laakiin warkaasoo imaka 5 madaxweyne leeyahay Soomaaliya kale waxaan ahay madaxweynihii federaalka Soomaaliya ma aynagana tirsanaya magaaladiisa xitaa ma xukumo. Sheekh Shariif hadda ku haysta okay waa goofka iyo xamar adigu goofkaaga hortag waxa tahay reer galguduud reer mudug baa tahay. horta warkaa maanta waxa la sameeyay waa 5 madaxweyne in magaalo haysta reer ahaan ku haysto. ya horta waxa Soomaaliya haysta waa taas. laascaanood inta waxaan ahayn gobol dowlad goboleed baan rabaa waa dadka la waalaya waxaan suurtagalayn. waxaan leenahay dadkaasna xuduud ma sameyn karna qabiil ma sameyn karo xuduudaha Ingiriiska iyo Talyaaniga ay sameeyeen baa adduunka ka jiray Faransiiska. Soomaaliland xuduudeedu waa lama taabtaan. qofka soo reer Soomaaliya xuquuq uu ku leeyahay xaqiisa uu weydiisan karaa.
laakiin waan goostanayo degmadeenna aan ka dhiganaya madaxweyne oo state ka dhigayna wax ummadda lagu maaweliye maaha waxa weeye Soomaali maanta wuxuu u baahantay nabad bay u baahantay tuulo kasta nabad buu u baahay inaynu qasno dadkeena maanta xil ku saarna Soomaali oo faarma caleen oo Soomaaliland u soo buuxo soo gaarisa aan waxba ku haysan inuu ila waxaan noolaanayaa intaas oo qowmiyo Kenya oo reer Soomaaliya family qoys oo ila waan kala diraya waa aqligaas waa aqli adoonnimo waxa aqligaan ku dhaqaanay magaalada Saaye Soomaaliya wiiba Soomaali galbeed iyo ogaadeenka aan ku dhaqaanay ma absolutely tamam waxaan leenahay Soomaaliland ma burburin kartaan Ilaahay baa iyo abuuray dal jiru ahaa waanu jiriya Soomaaliya oo ay doonto arki doonta si hore ugu ayday Soomaaliya ما مقصود الصومال وايد الصومال مقصود ويكره بابيسي ما تولد قروي وايد هذا بابيسي تولدي قروي أيام ما أنت له دارود باكو شري هذا المكان ما ذات يقولنا شنو الكاس نيروبي مرايكن يودغين why don't you live in قروي هذه المكان تاعي عاصمة تاعي مكان وحوي رأيك كان يعني حسد يا حمان أنا قلبسن هذا رئيس Soomaaliland إنه إذا كان قاعد اللوتش كماها رئيس Soomaaliland وحلينا هلك واحد نجيه هوجان حمينا نكتي هوجان ومضى كلا قيبية وتعالى نكتي ما أنت هلك لنا مرينا وهوجان حمق ما أنتنا يا نتي نقول إيه لبكون يلي حتى كديك واركد داية ماله رجع مشارحينتي بتكون مكيني كلام عادي Soomaaliland مسكون كله ما أنت روح لنا هي Soomaaliland وحول بهنتي بيو وحول بهنتي عافمات وحول بهنتين والأركتين قف كستبل دير نبوت تجي عادن دير بجي إنديان جي الأسبتال بنسميه كروي هرجيسان كبي يلا وهو كان حمده لو إلى الله بكون يتومكي إلى الله يتومكي أي Soomaaliland بابا أنت إلى ما أنت هوس بوش سعودي وهذا أركي شرفت له سودويني رياله نقول متكي مدحوينها كتجا نسويها كتجا إماك كتجا عود كتجا ساسو مقعيسو سويا لكن حب ما كوي السنة تريد يصعون السعي Soomaaliland كون صعون ماشي يجي بتوع عليه وحلو ما وفي يقولي كتير قرارو لكن حمتها تورتوري اسمعنا من الجيل وحو هاي إنه قامتين قبضة سنة وقعنت وقبلني إنه Soomaali كلا صاري هدوم توكل الشيء هدو أنت جرواي نبت جري وهاي نصي وضد كاري أوضل وذا دقة وضد الشيء عيسى قد برسوا بدن والولد هلا قد هاي يكلا قايمين إثيوبيا بيها سيسا غير كيسيسا قات كيسيسا جيبوتي إنه عيد نسينا عيد على قول الصباح جيبوتي وايد ما هي أنا قعدت كوين نجي إثيوبيا المه هو وين إذا بيشة المه هو وين إذا بيشة على هاي Soomaaliland ويسعون سبيل الله الكريم إذا مدى الدفاع الوفي هاي دولة توصف عم بالله سمين دون إن شاء الله غير سير راس عرض وحن ليه هاي ما عندك بشيء ويدالي ساعة حكا قادين ما عليه موسى يعد كلا جديد ويسكتجي عد بكتجي عد أيو كتجي لكن الروتا مقحيننا جامعة بربريننا ثم بعد نو هيسي وما الله قم وضو ومن عقل بالغو وضع يوناك بالغو وضع عقلي أو ياشيني أبي ياشين كان علي كانت جامعة وأوجيدين محمد سيادة حركم بضي وأوجيدين عبد الغني لا يمنع حريصي وأوجيدين وعرقي شركي قبل قبله حورين دي وحورين Soomaaliland قانك قاتي رجع كل بيضة دقال ومرة ومرة السكر لا وحلينا Soomaaliland هم نوراتو حلينا مدحوينا وسود ويننا نيدا wanaagsan doorashada xusb saddex xusb حلينا saddex gudaha la sameeyo ana hereera iska taagno mideynta shacbiga reer Soomaaliland wax kala qaybin ma baahna wax mideeya
ayuu baahan yahay shacabka soo waxaan leenahay doorashada dhacaysaa maantana ka fiirsada codkiina ka fiirsada dhalinyartow qabiil wax idin tani maayo waxay u baahan tihiin shaqo maanta ma shaqo lahaya waxay u baahan tihiin biyo caafimaad waxbarasho layd wadan aan layd lahayn koronto lahayn hore uma mariyo laambad baynu shidanayna waanu ka daba tegina waxaasoo dhan insha allahu tacaala wixii dowlad qaban jirta waanu qaban doonaa insha allahu tacaala ummadana cadaalad baa deeqda cadaalad baanu keeni doonaa insha allahu tacaala waxaan leenahay maalin wanaagsan sanad wanaagsan ilaahay inaga aqbalo ilaahay dadka qulubtooda hagaajiyo ilaahay wadan aamina oo loo soo shaqo tago laga shaqo tagin ilaahay ka yeelo subxaanahu wa tacaala wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh